kubadda cagta Chelsea ayaa qarka u saaran ayaa leeyahay heshiis ay ku keensanayso weeraryahanka AC Milan Gonzalo Higuain oo 30 sano jirka ayaa markaasi waxa uu kaga soo dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Juventus heshiis amaah hal ciyaareed uu ku joogayo kooxda AC Milan halka Alvaro Morata oo 26 sano jir ah lagu wado in amaah uu ugu dhaqaaqo kooxda kubadda cagta AC Milan maadaama ay arkeen kooxda Chelsea in weeraryahan xoogan ay u baahan yihiin waxa ay hadda u arkaan Gonzalo Higuain inuu yahay kan baahida ay qabaan dabooli kara Milan ayaa sidoo kale ka fikiri doonta ayaa leeyahay in lacag ku dhow 45 milyan ay markaasi ku iibiso xidigeeda qadka dhexe ee reer Ivory Coast Frank Kisai 22 sano jirkan ayaa la xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Tottenham sidoo kale Chelsea ayaa doonaysa Calcio Mercato ayaa sidoo qortay kooxda ka ciyaartooyaalka Shiinaha ee Beijing ayaa iyadu waxa ay markaasi dalab ka gudbisay xidiga reer Belgium ee qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Tottenham Hotspur Moussa Dembele oo 30 sano jirkan ayaana markaasi la filayaa inuu u dhaqaaqo horyaalka China Super League Sky Sport ayaa sida markaasi laga soo warinaya xidiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Dani Suarez oo 24 sano jir ah ayaa qarka u saaran in uu ku biiro Arsenal laacibka reer Spain ayaa hore markaasi la xiriirinayay kooxo fara badan oo horyaalka Premier League ka dhisan sida Everton West Ham United waxaana markaas haatan loolanka qayb ka soo noqotay kooxda kubadda cagta ee Gunners ee ka dhisan waqooyiga magaalada London tababare Unai Emery ayaa waxa uu doonayaa in Arsenal ay sii haysato Aaron Ramsey ilaa laga gaarayo dhamadka xilli ciyaareedkan halka ay 28 sano jirkan qadka dhexe uu markaasi doonayaan kooxo fara badan ee qaaradda Yurub ay ugu horeyso kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiin ilaa haatan wax heshiis kordhin ama uusan sameeynin waxa la xiriirinayay bishii January suuqan hadda lagu guda jiro inuu ka dhaqaaqo laakiin Aaron Ramsey tababare Unai Emery wuxuu doonayaa ilaa dhamadka xilli ciyaareedkan inay siyaastaan bal hadii ay wax isbedelayaan maadaama xidiga uu ka gadoodsan yahay in uu heshiis cusub saxiixo madaxii hore ee fulinta kooxda Manchester United iyo sidoo kale Chelsea Peter Kenyon ayaa isagu tartan ugu jira in uu iibsado kooxda Newcastle United waxa uuna si shakhsi ahaan markaas u la xiriiray milkiilaha kooxdaas Mark Ashley iyada oo waliba loo badinayo in kooxdaas uu la wareegay Liverpool ma ogolaan doonto ayaa la yiri in xidigeeda qadka dhexe ee reer England Adam Lallana oo 30 sano jir ah oo amaah markaas uga tago inta lagu guda jiro suuqa bishii Janaayo Sky Sport ayaa sidaa qortay Manchester City ayaa markaas ku hungowday iyaduna saxiixa 19 sano jirka daafaca dhexe kaga ciyaara kooxda naadiga ninka lagu magacaabo Toulouse Chan maadaama uu laacibka reer France qarka u saaran yahay in uu markaas dhameystiro qandaraaskiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona Independent ayaa sida markaas laga soo warinaya xidiga qadka dhexe ee PSG Adrian Rabiot ayaa suuqa xagaaga beeca xurta ugu beeri kara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Guardian ayaa sida qortay wargeyska ambuuryahanka Sunderland Josh Macha oo 20 sano jir ah ka oo laga xiriirinayo Tottenham ee sidoo kale Manchester City iyo waliba Southampton ayaa diiday dalab heshiis kordhina ee kaga yimid kooxdiisu uu haatan ka tirsan yahay weeraryahanka Munir Al-Haddadi oo 23 sano jir ahna waxa uu diiday fursad uu qandaraaska ugu cusboonsiinayo kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana lagu wadaa inuu suuqa xagaaga ee beeca xurta kaga dhaqaaqo kooxdiisa kubadda cagta ee Blaugrana iyadoo waliba ay jiraan kooxo kale ee si aad u xiiseynaya ciyaaryahanka caawa waxa la